Qaar ka mid ah madaxdii hore Israa'iil oo ku eedeynaya xukuumadda Netanyahu istirsifayn ay ka wada Gaza, shaqaale gargaar ka shaqeeya iyo dadkii gargaarka ka sugayay oo Israa'iil maanta ay ku leysay magaalada Gaza. Madaxdii Xamaas wadahadalka u qaabilsaneyd oo markii ugu horeysay la ogaaday halka ay ku sugan yihiin iyo wadahadalkii oo dib u bilaabanaya. Ku dhowaad 14 bilood oo magaalada Gaza dagaallo xooggan ay ka soconayeen, dad aad u fara badan ay ku geeriyoodeen, taasoo ciidanka Israa'iilna ay burburin xooggan ku sameeyeen magaalada Gaza, ayaa xilligan waxaa la soo warinayay in macluusha ka taagan magaaladaasi aad u sii liidanayso. Dadka Falastiiniyiinta oo tan iyo 7 Oktoobar 2023 ku geeriyooday ayaa la sheegay xilligan inay gaareen 44,382 qofood oo Falastiiniyiin ah, una badan carruur iyo haween, iyo sidoo kale dhaawacyo ka badan 105,142 qofood oo dad rayid u badan. Maalmaha ugu khasaaraha badan oo maanta ay ka mid ahayd ayaa la sheegay in magaalada Gaza ciidanka Israa'iil ay ku laayeen shaqaale gargaar ka shaqeynayay oo hay'ad fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ay waday gargaarkaasi iyo si la mid ah dadkii sugayay. Hay'adda lagu magacaabo World Vision oo saldhiggeedu uu yahay dalka Mareykanka ayaa la sheegay in shaqaale u shaqeynayay oo ilaa 3 qofood gaaraya duqeyn ciidanka Israa'iil ay fuliyeen ay ku geeriyoodeen, taasoo ka dhacday magaalada Khan Younis oo ah magaalada labaad ee Gaza ugu weyn. Sidoo kale tan waxaa ku geeriyooday dad Falastiiniyiin ah oo gargaarkaasi suganayay. Hadda uma horeysa in Israa'iil ciidankeedu ay dilaan dadka Falastiiniyiinta ah ee gargaarka sugaya iyo dadka gargaarkaasi ay ka sugayeen. Dhacdooyinka xanuunka badan magaalada Gaza aad ay ugu soo laalaabteen ciidanka Israa'iilna badanaa goobaha gargaarkaasi lagu bixinayo, isbitaalada iyo si la mid ah goobaha rayidku ay ku sugan yihiin iyo kaamka qaxootiga ay aad u beegsadaan. Ficiladaas oo sababi kara in dambiyo dagaal lagu eedeeyo madaxda Israa'iil, taasina hadda bilowgeeda gacanta ayay ku hayaan, maadaama ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo si la mid ah wasiirkiisa hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant ay ku eedeysan yihiin dambi dagaal inay galeen, waaran lagu soo xirayna loo jaray. Dambiyadaas dagaal ee ka dhacaya Gaza waxaa sidoo kale indhahooda ay soo qabteen madaxdii hore ee Israa'iiliyiinta. Wasiirka hore ee difaaca Israa'iil Moshe Yaalon iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid yahay ayaa ku tilmaamay waxa ka socda dhulka Falastiiniyiinta inay tahay istirsifayn xilligan xukuumadda Netanyahu ay wado. Moshe Yaalon waxa uu sheegay waxa ka dhacaya daanta galbeed iyo magaalada Gaza marka loo fiiriyo inay tahay istirsifayn dadka Carabta halkaasi ku nool oo ku wada ra'iisul wasaare Netanyahu. Weriyaha wareysan Yaalon ayaa weydiiyey su'aal ah in xilligan waxa ka dhacay magaalada Gaza uu la jeedo istirsifaynta, taasina waxa uu ku sheegay in cid waliba ay arkayso waxa ka dhacaya magaalada Gaza oo lagu baabi'inayo dadka Carabta ee ku nool waqooyiga Gaza oo dhibaatada ugu xooggan xilligan Israa'iil ay ku hayso. Horumar ayaa lagu eedeeyay Israa'iil waxay waddaa inay tahay istirsifayn dadka Falastiiniyiinta lagu sameynayo, sidoo kale tan ay ka taageerayaan garab weynta isku halaynayso ee reer galbeedka. Kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale la sheegay maanta inay soo bandhigeen fiidiyoo oo ka soo muuqday qof Israa'iili ah kaasoo sheegay inuu ka mid ahaa dadkii 7 Oktoobar 2023 laga soo afduubay deegaanada Israa'iil ee xoogga ku haysato, wuxuuna baaq u jeediyay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo ugu baaqay in aanu marin wadadii dambiyada dagaalka uu qaybta kaga qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Joe Biden. Hubka Mareykanka ayuu sheegay in xilligan ayaga maxaabiista lagu leynayo, Netanyahuna u adeegsanayo. Xilli dhowaan Qatar ay sheegteen madaxda wadahadalka u qaabilsan Xamaas aanay dalkeeda ku sugnayn, sidoo kale tana aanay sii wadi doonin wadahadalkii maadaama dhinacyada wadahadalku u dhexeeya aanay dhab ka ahayn, ayaa xilligan waxaa la ogaaday halka ay ku sugan yihiin madaxdii wadahadalka u qaabilsanayd Xamaas. Madaxda Xamaas ayaa la sheegay in Masar ay gaareen, kuwaasoo halkaasi kaga qayb geli doona wadahadallada u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Mareykanka, Qatar iyo Masar ay garwadeenka ka yihiin. Wararka la helay warbaahinta qaarna ay shaaciyeen ayaa waxay sheegayaan mas'uuliyiinta Xamaas ee gaaray magaalada Qaahira inuu hogaaminayo Khaliil al-Haya, sidoo kale tan ay ka mid yihiin Suhail Jabrin iyo Muuse Marzuuq, kuwaasoo xilligan la sheegayo inay hogaaminayaan wadahadalka kooxaha Falastiiniyiinta ay la yeelanayaan dowladaha si dhexdhexaadinta ka dhex wada ayaga Israa'iil. Al Jazeera waxay sheegaysaa wararka la helay inay tilmaamayaan in soo jeedinta xilliga miiska saaran ay tilmaamaysa 20 ilaa 30 beri oo xabad joojin kooban ah, taasoo lagu sii dayn doono qayb ka mid ah maxaabiista ay hayaan Xamaas, sidoo kale tana lagu sii dayn doono maxaabiista Falastiiniyiinta ee xabsiyada Israa'iil ku jira qayb ka mid ah haddii la isku afgarto labada dhinac ay aqbalaan. Sidoo kale waxaa la filayaa in haddii xabad joojinta hirgasho laga sii shaqayn doono sidii
xabajoojintaasi mid rasmi ah looga dhigi lahaa, waana shuruudda Xamaas markasta ay ku xirto wadahadallada soconaya, taasoo sheegtay haddii aanay xabajoojintaasi noqon doonin mid dhab ah oo ciidanka Israa'iil guud ahaan ay kaga baxayaan magaalada Gaza inaan aqbali doonin. Lama hubo xilligan waxa ay noqon doonto soo jeedinta rasmiga ee lasoo bandhigay iyo si la mid ah in aqbali doonaan dhinacyada oo inta badan lagu eedeeyo Netanyahu inuu yahay qofka diidan. Xabajoojintii laga dhaqangeliyay dhanka Lubnaan oo la sheegay Israa'iil in dhankeeda dhowr mar ay jebisay, hase ahaatee Xisbullah ay dhaqangelisay ayay daba socotaa xabajoojinta hadda laga qabanqaabinayo in magaalada Gaza sidoo kale laga hirgeliyo.